dhammaan mudanta halkan isugu timi magaciyo meeqaam kasta ku fadhiyo waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi ilaahay waa mahad leh ilaahay inoo suuro geliyey inaynu maanta xafladdan u dabaaldegno oo aynu labadaa maayeer u kala wareejinno xilka reer sheekh waan ka mahad celinaynaa dhammaantayaba sidii qiimaha lahayd ee xildhibaanadan golaha deegaanka iyo xildhibaanadii golaha baarlamaankaba ay u garab istaagteen xuduuddiinna ayaan kuraasta ku fadhinaa aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa runtii goor gaaban hadalkeedna gaaban maayarkii hore waa u ducaynaynaa in ilaahay halka uu ka tegey iyo halka uu socdo meel khayrle mar kasta cagtiisa lugta u dhigo maayarka hadda xilka la wareegaya waa maayar dhallinyaro ah bulshadu dhallinyarada wax badan bay ka filayaan waxaynu isagana ugu ducaynaynaa in ilaahay aanu ilaahay xilka ku kashifin waxa laga filanaya ilaahay u fududeeyo degmada sheekh waa degmo ballaadhan 32 ayaa hoos yimaada tuulo 32kaa tuulo waxay isugu jiraan dhuldaaqsimeed iyo dhulbeereedba waxaan halkan fariintan uga farayaa iyaga laftooda waxa weeyaan cashuurta degmada ha taageeraan oo inta beeralaydina insha Allah cashuurta qayb ha ka noqdaan reer sheekh sida ay u taageeraan maayarka iyo xildhibaanada hadda u yimi ayuunbay wax wada qabsan karaan farquri fool ma dhaqdo haddii qof kudha laga sugo waxqabad waxba ma hagaagaan insha Allah saa ula shaqaysaan ayuunbaa ku dhaafi kartaan degmooyinka kale maanta waxaa laydinka filayaa dhaqaaq weyn baa laydinka filayaa runtii maayarkii hore wax badan oo lagu diirsado degmada uu qabtay wax badan oo la taaban karo uu qabtay waxaynu u baahannahay ciddii halkaa ka sii dhaqaajin lahayd ee halkay maanta aad taagantiin ka sii wadi lahayd waxaa le ilaahay xilka haynu ku asturo halkaa maanta taagantiinna insha Allah meel ka sarraysa ina gaadhaan baarlamaan ahaan annaga awooddaydu waxa weeyaan inaannu wixii dawladda dhexe iyo idinka sidii la isugu keen xidhi lahaa degmada sheekh waa degmo fac weyn hadday noqoto xagga waxbarashada ku horraysa insha Allah jaamacadda maanta gacanta laynugu hayana kuwii garab istaaga inaynu noqonno oo jaamacaddaas ay noqoto jaamacadda geeska afrika oo dhan la ysaga yimaado sidii awalba dugsigii sare ee ay sheekh lahaydba ay uga soo bixi jireen dhammaan madaxdii qaranka oo dhan jaamacaddeenna maanta budka seeskeedii la dhigay inaynu ka wada shaqayno oo xukuumadda dhexe iyo golayaasheeduba aynu ku garab istaagaan sidii jaamacaddaas ay noqon lahayd jaamacad taaba gasha oo caalamkao dhan ka diiwaan gasho insha Allah waxaan runtii aad iyo aad u bogaadinayaa dhallinyarada reer sheekh oo runtii mar kasta jecel inay la jaan qaadaan dhigooda gobollada kale waxaan leenahay garabkiinaan nahay insha Allah wax kastoo tabaysaan iyo meel kastoo waxaynu kaga xanibayeenba waan la furfuri doonaa haddii la yidhaahdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu baasiyahay xildhibaan cali qaran isuduwaha waxbarashada ee degmada sheekh oo magaca isuduwaasha degmooyinka ku hadli doona ayaan ku soo dhaweynayaa maxamed ibraahim oo muddada ugu dheer waa isuduwihii ugu muddada dheeraa ee degmada ka shaqeeya wax badan oo la taaban karana ka qabtay ilaa inuu kala wado بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحن هلكن uga mahadnaqayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inta kadib waxaan salaamayaa warasaabka gobolka saaxil agaasimaha guud xildhibaan cali jaamac Raale oo golaha wakiilada ka tirsan maayarkii hore maayar ku-xigeenkii hore golii deegaankii hore maayarka cusub iyo maayar ku-xigeenkii golaha deegaankii cusub kaliya anigu waxaan u baan mahadnaqayaa أنا أفكي سدوياش كو هذا إن بعد وزارة وحبرشة قار وصي هلا أو أنا نجي جامعة تيرنوفا يدكسي السراسوس أو إسكاشرين عن شهادة كسي ما مصنع ما ملكي هري دقمة الشيخ وبدأ تعب سوف رجلي تعب بدل سوق لي مقالدن واحد بدلنا السوق قبتي
golaha cusubna waxaan leenahay dulqaadkii ay lahaayeen odayaashaa hore ayaa laydinka fadhiya xildhibaanadii hore dulqaad badan bay lahaayeen idinkana waxaan idinka rajaynayaa dulqaadkiisa lahaateen iminkana waxaan ku wareejinayaa sidaan shahaadooyinka u siin lahayn maayarkii iyo maayar ku-xigeenkii hore wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xildhibaanada inagala jooga golaha wakiilada xildhibaanadii hore ee golaha deegaanka waynu sii sugootiyeyno xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka marti sharafta kale laamaha amniga odayaasha iyo caaqiladaba iyo bahda saxaafaddaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxa weeyaan xil wareejintii golaha deegaanka ee berbera ee sheekh ee hore iyo kuwa cusub ee iminka la soo doortay oo maanta aynu halkan ugu kala wareejin doonno xil wareejintii waxaan ku horraysanayaa golihii deegaanka ee hore oo leeyahay wixii ay soo qabteen way soo qabteen innaguna maanta waynu sii sagootayeynaa una soo ducaynaynaa waxaan leeyahay waxay ahayd wixii aad qabateen waajibaadkiinnii shaqo oo aad gudateen waana idinka mahad celinaynaa inta kale idin hadhayna niman degmada ka tegaya ma tiidine waxaa laydinka baahan yahay tale iyo tusaale iyo la shaqayn fiican waana idiinsi ducaynaynaa golaha deegaanka ee cusub oo maanta runtii xaashi cusub ka bilaabi doona oo shaqo badani u taallo waa niman dhallinyaro aqoon-yahanaa waxaan jecelahay runtii in iyaguna noqon doonaan niman waajibkooda guta oo shaqadooda ka soo baxa iyagana waxaan leenahay ilaahay xilka aad qaadeen ee ummaddu idin soo doortay ha idiin fududeeyo xukuumad dhexe ahaan dowladda dhexe waxaa la isku maamulayaa waa xeerka gobollada iyo degmooyinka golaha deegaanka ee cusub maadaama ay dad deegaanka ay yihiin way garanayaan degmada sheekh waa degmo qadiimiya waa degmo runtii qaaliya waa degmo iskuullada iyo jaamacadaha iskuullada ku yaalla ay yihiin kuwa somalilan oo dhan anfaca waa meel taariikhi ah waa meel u baahan in runtii aad looga shaqeeyo oo xil weyn iska saaro ninka golaha deegaanka ee halkan laga doorta waxa weeye inuu degmadaasi taariikhiga ah ee weyn wixii ka dhiman ee uu maanta u soo diyaargaroobo u dhaartay runtii waa inu fuliyaan marka ugu horraysa eed shaqadiinna bilaabataan eed xeer hoosaadkiinnii iyo qorshihiinnii iyo howlihiinna oo dhan gudataan waxaa tiindada isku duuban xisbiga doontiin ka soo baxa waxaa laydinka maamulayaa waxa weeyaan wasaaradda arrimaha gudaha nidaamka iyo shuruucda u taalla ayaa lagu shaqaynayaa xeerka gobollada iyo degmooyinkana waa la tix raacayaa mar kastoo aad qorshihiina samaystaanna waxaad sanad kasta eed sanad u qaybsataan eed 3 bilood u qaybsataan eed 5 sanno marka hore wada dejisataan hadhowtoona waa halkaynu wax ka qiimaynayno qorshe la'aantii waxbay noo suurtogeli maayaan marka waanu ku soo dhoweynaynaa waanu idinla shaqaynaynaa waxaan doonayaa uun inaan farriin yar idhaahdo iyagana dadweynaha reer sheekh degmada ballaadhan ee tuulooyinka badan hoos yimaadaan ee khayraadka badan leh hadday cashuur bixin waayaan si kalay noqonaysaa waxaan doonayaa markaa inay iyaguna si dowladda hoose noqoto mid waxqabata oo waxay doonayaan ka helaan oo nimankaa aad u codaysayne aad ka doonaysaan adeegii dadweynaha inay ka qayb qaataan ee wax idinka qabtaan sidaad isu garab taagtaan eed cashuurta u bixisaan eed ula shaqaysaan bay ku xidhiyiin ismaaciil waa shaksi maayarku waa shaksi golaha deegaanku waa 9 qof keligiina waxba qaban maayo haddaanay la shaqaynin golaha deegaankuna haddaanay dadweynaha dabada ku haynin iyaguna waxa weeyaan waxba qaban kari maayo dhammaan dowladda hoose oo dhan baa waxba qaban karin markaa dowladda hoose oo cashuur qaadini ma jirte saareesha qowska bedela taasi waa farriintiinnii ceeb baabaydu ku tahay dee dadkaa dhan halkaa joogay ugu aqoon-yahansane
magaraysa wax walba fahmaya oo la leeyahay nina cashuur ma bixiyo taasi waxa weeyaan yani dhicin waataan idinku celcelinayo in badanna halkaasaa laga sheegay waa laydinku canaantay waa laydinku celceliyey kelmaddaasi la leeyahay cashuurna ma bixiyo meesha ayay iman hadda kadib aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan idin ducaynayaa golahii deegaanka hore iyo kuwa dambaba iyo dhammaan dadweynaha ka soo galayba jaamacadda ku horreeyey halkan lagaga hayay anigaa runtii guddida guddoomiye u ah meel fiicanna way maraysaa waanay soconaysaa waxbarashadeenna dhinaca waxa ka dhimanaya jaamacadaha iyo waxaana sarayn usii qaadi doonaa horumarka iyo arrimaha bulshadaba aad baynu wada shaqayn doonaa dowladda dhexe haddii aanu nahayna aad baanu idinla shaqaynaynaa laakiin dadaal badan baa laidinka doonayaa wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah